markii koowaad waddankeena laga helo maanta ay bishu tahay March 13 si guud waddanku diyaar garow badan uu ka muujiyay meelo badan oo la qiyaasay inuu ka iman karayo xoog badan baa la saaray gaar ahaan Bole International Airport maadaama uu yahay habka ugu weyn ay diyaaradaha caalamka isaga gooshaan maanta nin da'diisu tahay 48 sano ka soo jeeda waddanka Japan markii horena socdaal ku soo maray bishii March 4 Burkina Faso ayaa maanta laga helay wasiiradda caafimaadka federaalka Dr. Lia sida maanta ay statementkeeda ku sheegtay ama warbixinteedii maanta ay TV-da ay ku siisay xaaladda caafimaad bukaankaas hadda way fiican tahay dadkii soo booqday ama ay contactiga yeesheen waa quarantine lagu sameeyay trace back lagu sameeyay yani inaynan dhibkii uunan sii faafin si guud xanuunkan caalamka dhan uu ka jira innaga waddan ahaana waxaan ku dadaalaynaa sidii intaan qaban karayno aan xoog saaro deegaan ahaan dhowr arrimood baan doonayaa inaan halkan aan uga gudbiyo bulshada marka koobaad xanuunkan waddanka uu soo galay sidoo ku faafayana ama awoodda xadka uu ku soconaya faafitaankiisana si hoose oo taxadir leh baan ula soconnaa inaan la soconno inta wax ka horeysa bulshadu inay ogaato waxyaabaha keenaya inuu faafo inay tahay iyaga dhexdooda waxa ugu badan ee keenaya waa contact bulshada ka dhex dhaca weeyaan goobaha buuqa ah ama goobaha la isugu yimaado oo kale in qofku taxadir sameeyo taxadirkii shakhsiga sameeyo kii bulshada sameeyo waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan bulshadeenu inay fahanto xanuunkan in ay ka taxadirto annaga imika goobo badan oo u qaadanay risk area ama meelaha halista ah xoogaan saaray dabool loo kale xoogaan saaray wajaal oo kale doolacado mooyaale shilaabo galxamar degmooyinka xuduudda wadaag oo dhan xoog ayaan saaray wixii dadaal ahaayay wixii qalab loogu talagalay wayna soo gaareen waddanku u diyaariyay si guud Addis Ababa xarumo waaweyn baa laga sameeyay sarroodii gaariyihiin qalabkoodii gaariyahay laga taxadiray inuuna meel kale aanu uga faafin taa in muddo way soo socotay innaga deegaan ahaan meel dhammaystiran oo qalabkeedii iyo sirriheedii iyo waxyaabaan kula tacaalinoo dhan leh baan samaynay cabsi badan diyaar garow la'aan kama qabno hadda laakiin maadaama de wax adduunka dhan saameeyahay in bulshadu nala fahanto annaga taagaygan dadaalo iyaguna ay wanaagii iyo dadaalkii iyo wadaniyadii oo qofka hadduu maanta iska dareemo waa inuu ku xisaabtama inuuna qof kale uuna dhibaataynin exactly marka intaa laga yimaado deegaan ahaan task force team baa la sameeyey xukuumadda iyo dhammaan way nagala qayb galeen waxa jeergareynaya madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Umar dhammaan xafiisyadii bahwadaagta nala ahaa aan ugu talagalay inay nagala shaqeeyaan waa notification waan siinay wayna la socdaan xaaladda